بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الله أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacaygu waa Antar Sayid Xuseen waxaan barakahay xarunta Baafo ee magaalada Muqdisho waxaan soo barnaamijkeena ahaa Excel Banking 2019 waxaan taaganahay warqad ay ku qoran tahay L6 waa cashirkii lixaad ee barnaamijkeena oo aan uga hadlaynay bangiyada iyo qaabka barnaamijkan Excel ay u isticmaalayaan waxa uu noqonayaa maanta cashirkeena inaan ka hadalno types of bank accounts noocyada kala duwan ee bangiyada akoonada laga furto sida caadiga bangiyada waxaan kugu soo sheegay inuu yahay financial institution waxay ogolaanayaan amba hawshooda ugu weyn waxay tahay in qofkii lacag raba inuu dhigtana ay ka qabtaan akoon ay u furaan qofkii lacag raba oo deynana in ay siiyaan amba shirkadaha diinta aad u danaynayo lacagtaas ay ka qaadeen macaamiishooda inay siiyaan marka qaybta ugu horeysa aan kugu soo sheegay inay tahay inay lacag qabtaan qaabkay lacagtu qabtaan rabnaa inaan ka hadalno akoonada ay furaan iyo nooca uu yahay akoonadaas iyo waxa uu yahay akoon walbaba afar nooc ayaa meeshan ka soo qaadanaynaa laakiin ka badan ayaa jirto bal afartan ayaan ku soo koobaynaa hadii la yiraahdo nooca ugu horeeya waxa loo yaqaan checking account amba current account waana nooca ugu isticmaalka badan leh inta badan ganacsiyada ayaa furto waa nooc ka mid ah akoonada waana akoon lacag la dhiganayo bankiga ayaa laga furanayaa amba credit unionka waxaa loo ogolaanayaa qofkii akoonkaani furtay oo akoonkan iska leh oo bangiga gudihiisa ku leh in lacag uu dhigto akoonkiisa isla markaasna uu lacagta uu la baxo si degdeg ah bilaa shuruud lacagta waa dhiganaysaa isla daqiiqada u baahan tahay waa la bixaysaa adoo hadda lacagta dhigtaa isla hadda la bixi kartaa cid ku weydiinaysa male war maxaa ula bixaysaa cid ku dhahaysa male ashloonkaas procedure-ka loogu talagalay in lacagta aad kula baxdid aad soo raacaysid inta badan nidaam jeega lacagta looga bixiyaa marka jeega ayaa soo qoraysaa haddii adiga u baahan tahay jeega ayaa qoranaysaa haddii qola lacag kugu leh rabtid inaad lacag iska siisina jeegaas ayaa qoraysaa jeegan waxaa soo daabacaya bangiga akoonkaaga nambarkiisa iyo reference ama tixraac ayuu soo sameynaya saxiixaaga waxa dhanna meesha waa la dhigayaa oo hadhow markii jeega soo qortid la hubinayo iyo qolada aad soo qorto ayagana la weydii doono sida jeegan ay ku heleen iyo wixii cadeyn ay haystaan marka nidaamkan checking account amba akoonkan bangiga uu ku sahlayo inaad furatid ayaa wuxuu yahay akoon lacagtaadana aad dhiganaysid xilli alaale xilliga u baahan tahay inaad kala bixiysid hadda waxa walba way iska fududaadeen waxaa lagala bixi karaa xitaa mobilada sidoo kalena waxaa lagula bixi karaa qaab online ahaan oo lacagtii waxaa sameyn kartaa in akoon kale aad ku wareejisid nidaam loo yaqaan transfer ayaa jiro amba electronic transfer akoonkaaga ka qaadaysa akoon kale leedahay lacagtaas ha lagu wareejiyo markii wixii dhammaan iska fududaadeen jekali lama baxo oo mobilkana waa lagala bixi karaa sidoo kalena online waa lagala bixi karaa online banking ayaa jiro amba e-banking wax loo yaqaano nooca labaad waana nooca ugu isticmaalka badan leh dadka dhan ay aad u furtaan waxa loo yaqaanaa savings account waa account kaydsi ah akoonkan ganacsi maahan waxa lagu talagalay dadka householdiga ama dadka shaqaysta iyo dadka lacagaha haysta oo raba in ay bangigooda lacag dhigtaan marka akoonkan waa nooc ka mid ah akoonada bangiyada laga furo wuxuu u ogolaanayaa qofka in uu lacag geysto bangi akoonkiisa meeshaas oo ku ilaashado oo ku xifdisto wixii oo isticmaalaa wixii ka dheeriga inuu dhigto isla markaasna lacagtaas oo kala baxo qaarkood interest ay shaqeeyaan waa haddii nidaamkan conventionalkan ka hadlayno laakiin systemka islaamiga wax interest lahayn ma jiro lacagta dhigata la kala bixaysaa sidaas la mid ah checking account-kana waxa dhigatid ayaa kala bixaysaa marka waa nooc ay ugu badan yihiin dadka ilaa dadkii wada ganacsadayaal maahan dadku waxay isku jiraan dad guri joog ah dad aan shaqeynin dad shaqaale ah oo laakiin ganacsiyo aan haysanin marka checking account-ka ma wada furo karaan waxay u baahan yihiin meel kale amba akoon kale ee lacagtooda ay dhigtaan marka waxay noqotay in la sameeyo savings account wax loo yaqaano waxa loo fududeynayaa lacagta inay dhigtaan lacagta inay kula baxaan markii lacagta ay dhiganayaan form euro deposit ayay ku dhiganayaan markii lacagta ay kala baxayaan form euro withdrawal form ayaa lahaa ayay kula baxayaan wax jeeg ay qorayaan habeeraatee male hadda wixii casriis ka noqdeen mobilkana uu kala bixi karaa qofka akoonkiisa iyo mobilkiisa numberkiisa ayaa la isku xirayaa mobilka ayuu kala soo baxayaa qaab online ahna uu uga baxsan karaa waa haddii loo fududeeyo facility noocaas marka waa nooc labaad ee akoonada ee bangiyada ay furaan midka saddexaad waxaa loo yaqaanaa recurring deposit account
deposit account waa account lacag la dhiganayo, recurringna waa soo laalaabashadii waay, waxaa soo noqnoqonaya lacagaha la dhigayo, macnaha wax hal mar lacag la dhigayo ma jirto. marka haddii aan sharxadiisa usoo gudubno, noocan accountka ah ayaa waxa ay tahay waxaa lagu heshiinayaa bangiga iyo qofka akoonkaas furanaya waxay ku heshiinayaan in lacago go-an uu akoonka kusoo shubo xiliyo kala duwan. xiliyadaasna waa laisku sii sheegayaa, waxaa leeyahay bisha kowdeeda waxaa akoonka kusoo shubaysaa $100, bisha 15 markay gaarayso waxaa kusoo shubaysaa 100 kale, bisha dambe 100 ayaa ku shubaysaa, bisha kale markeeda 100 kale ayaa ku shubaysaa. macnaha waa deposit la sameynayo, akoonka ayaa lacag la dhigayaa, laakiin lacagta la dhigayo waqtiyo kala duwan waa la dhigayaa, qaab installment ahaan ayaa loo dhigayaa. lacagtaasna waa lacag go-an, waqti go-anna waa la dhigayaa. marka inta badan akoonadan midkaan recurrent account-ka waxaa saas loo sameynayaa, waxa uu rabaa qofka akoonkaas samaystay oo furtay nidaam maalgelin ahaan ayuu rabaa inuu akoonkiisa oo ku samaysto oo faa'iido uu ka hela. faa'iidadana waa interest-ka. marka qolooyinkan bangiyada conventionalka aad ayay u isticmaalaan, bacdama interest ay bixiyaan, interestkaas ayay ku siinayaan qofka akoonkan furtay oo lacagta soo dhiganayo. waa nidaamka hagbadda oo kale, walow hagbadda wax interest uusan jirin, haddana hagbadda maalinba kis ayaa dhiibaysaa, wixii markay soo wareegaan hal mar ayaa waxaa helaysaa wixii aad dhiganaysay intaasoo beryood amba intaasoo bilood ayaa hal mar helaysaa, laakiin lama socdo wax interest ama dulsaare. kan waxaa la socda marka dulsaar, marka waxaa loo yaqaanaa recurring deposit account. akoon ayaa furaysaa, bangiga waxaa ku wada heshiinaysin in waqti aad soo dhigtid lacago laisla wada ogyahay, interest la ogyahayna uu shaqeeyo. marka waxaa la sameynayaa akoonkii ayaa la furayaa, adiga waqti walbo lagu balama lacagta ayaa soo dhigaysaa, lacagba lacagta ka dambeysa interest ayay sii shaqeynaysaa, weliba nidaamkan compound interest ayay isticmaalaan. saas markay baasha ay ku socoto ayaa waxaa imaanaysa hadhow in marka ugu dambeyso lacagtaada aad la soo baxdid ayadoo interest la socoto. akoonka afraad ee inta badan la sameeya ayaa waxay tahay mid loo yaqaano fixed deposit account. xoogaa yar kan ayuu u dhow yahay, laakiin uu ka duwan yahay. waa fixed, waa lacag ayaa hal mar keenaysaa, akoonkii ayaa furaysaa, hal mar ayaa dhigaysaa. lacagtaas muddo lama bixi kartid, way kaa xayirnaanaysaa. markii waqtigii la gaaro oo interestkan ay shaqeyso, waqtiga lagu heshiiyana la gaaro, markaas ayaa waxaa helaysaa jaanis ah inaad lacagtaada aad la baxdid amba ina haddana dib akoonkii maalgelin ahaan aa ugu celisid. tusaale ahaan waxay ku heshiiseen $1 in akoonka aad dhigtid, 6 bilood $1,000 inuu akoonkaas ku jiro, lacagtaasna ay shaqeyso, interestna lagu sheego, bangiga interest ayuu ku sheegay, wuxuu ku leeyahay 2% ayaan ku siinaynaa. marka 6daas bilood lacagtaas waxay yaran tahay, lama soo bixi kartid. marka 6 bilood ayaa sugaysaa, 6 bilood markay dhamaato $1,000 iyo 2% waxa ay dhashay ayaa isku soo qaadanaysaa $200 banaanka ayaa tahay. lacagtaada amba waa la bixi kartaa oo waxaa sameynaysaa inaad qaadatid, amba waxaa leedahay haddana mar kale ayaan rabaa inaa heshiis kale idinla galo, isla lacagtii ayaan rabaa inaa ugu celiyo akoonkii, lacag interest kale si ay u shaqeyso. marka waa nooc ka mid a investment account, waa maalgelin. waa akoonkani waxaa la rabaa in lacag lagu helo, lacag mucayana ayaa lagu maalgelinayaa, interest ratena bangiga iyo qofka akoonkaas furanaya ayaa ku wada heshiinayo. qofka akoonkaas furanayo wuxuu leeyahay saasaa u baahan, instructionskiisa ayuu sheeganayaa. haddii heshiiska macquul tahay bangiga wuu loo waafaqayaa, isagana bangiga nidaamkiisa wixiisa ayuu sheegayaa. intii ayaa lagu heshiinayaa. markii lagu heshiiyo ayaa waxaa la bilaabaya markii lacagtaas akoonkii lagu soo shubo bangigan inuu ku shaqeeyo. waqtiga markii la gaaro lacagtaas hadda oo diyaar ay noqoto, qofka iska leh akoonkaasi oo lacagtaas soo maalgashtay 2 option buu haystaa: inuu lacagtiisa la baxo oo kaash ahaan uu qaato, amba inuu haddana dib bangiga ugu maalgeliyo, haddana akoonkii uu dhaho haddana haleysiiyo agreement kale amba heshiis kale, waxaan rabaa lacagteeda inaan dib ugu maalgashto si aan haddana lacagteeda ay igu shaqeyso, interest kale aan u helo. marka intaas buu samayn karaa. labadan nooc ee ugu dambeyso bangiyada islaamiga kuma shaqeeyaan. bangiyada islaamiga waxay aad ugu shaqeeyaan labada nooc oo hore, checking account-ka iyo saving account-ka, ayagoo labadaani
sii balbalaarinayo macnaha akoona kale waxaa arkaysaa magacyo kale loosoo sameynayo laakiin waxay kasoo hoosbuxayaan labadan akoon oo kale in bangi loo furaayo oo jeg loo sameynayo lacagtii oo dhigtoo la baxaayo iyo in akoon saving la sameynayo caamada ama dadka si u badan yihiin waa akoonka isticmaalaan lacag ayuu dhiganaya oo la baxaya oo dhiganaya oo la baxaya wax interestna ma jiro marka inta badan labadan akoon ayay bangiyada islaamiga ay furaan Soomaalidan hadda fiirisid labadan akoon waa waxay ku shaqeeyaan inaad lacag u dhiibatid iyo inaad lacagtaada ka qaadatid wax ka dhaxay habeeraatay male ayaga ha kuu magaceeyaan marba magac kugu bixiyaan laakiin haddaa fiirisid astaamaha iyo qaabka ugu shaqeynaya akoonkaasi labadan wax ma dhaamo inuu bangi yahay oo checking account uu yahay oo nidaamkan jag ku shaqeynayo oo lacagtada qaab business ahaan oo bangiga kula macaamilayo iyo inuu kula macaamilayo qaab personal ahaan ama shakhsi ahaan oo qof lacag dhiganayo lacagtiisa la baxay inay noqotid wax ka dhaxeeya beeratay male maanta insha Allah taala intaas ayaan ku hakinayna inta cashar lamid kulmayna waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo subhanaka allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.